hay-adaha dakhli ururinta ee dowladda Soomaaliya waxaa sanadkiiba ka luma lacag dhan 24 milyan oo dollar sababtoo ah shirkadaha ajaanibta iyo kuwa Soomaalidu leeyihiin oo la dhunta ama si nidaamsan ula baxsada canshuuraha. Shirkadahan si toos ah uma diidaan inay bixiyaan canshuurta, balse intooda badan waxay adeegsadaan heshiisyo dabacsan oo dowladdu ay la gashay qaramada midoobay, kaasi oo lagu maamulo shirkadaha iyo safaaradaha wadamada dibadda badankood. idaacadda VOA waxay aragtay liiska in ka badan 30 shirkadood oo gaar loo leeyahay oo isugu jira ajaanib iyo Soomaali, kuwaasi oo qaarkood ay ku tuntaan heshiiskan, waxayna la baxsadaan malaayiin dollar sanad walba. heshiiskaasi lala galay qaramada midoobay waxaa lagu magacaabaa heshiiska martigelinta oo sidoo kale loo yaqaano Sooma, waana qaanuun ay qaramada midoobay la gasho wadamada ay ka shaqaynayso. dawladuhuse waxay xaq u leeyihiin inay ka xaajoodaan farsamada iyo sida uu qoran yahay heshiiska, waxaana muuqata in dowladda Soomaaliya heshiiskan ku gashay si degdega. Maxamed Cabdullaahi Salaad Omar waa wasiirka gaadiidka iyo duulista hawada, waxaana hoos yimaada xerada Xalane ee garoonka diyaaradaha ee Muqdisho oo ay degan yihiin badi ama dhammaan shirkadahani. shirkadaha iyo hay-adaha hoos yimaada UN iyo safaaradahu waxay ku shaqeeyaan heshiis u dhaxeeya dowladda Soomaaliya iyo UN-ta oo SOM agreement la yiraahdo, oo muddo ka hor dowladda Soomaaliya xilli xaaladda Soomaaliya ay aad uga duwaneyd xaaladda hadda aan joogno ay la gashay. heshiiskaasi ayay badi shirkaduhu ku joogaan. heshiiska Sooma waxaa la saxeexay 26 bishii Febraayo sanadkii 2014, waxaana wada saxeexday Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo xilligaasi ahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya, iyo ergeygii hore ee gaarka ah ee qaramada midoobay u qaabilsanaa Soomaaliya Nicholas Kay. xilliga heshiiskan la saxeexay waxaa dowladdii ra'iisul wasaare Cabdiweli Sheekh Axmed ay jirtay bil kaliya. qodobka 13 faqradiisa waxa uu ogolaanayaa howlgalka qaramada midoobay ee ANSOM iyo shirkadaha qandaraaska kula jira inay soo dejiyaan canshuur la'aan wixii qalab ah, adeeg ah, saad ah, shidaal ah, qalab dayactir iyo agab kale oo isticmaalkooda uu khaas u yahay ANSOM, ama in dib looga sii iibin karo goobaha adeega u fidanaya howlgalka ANSOM iyadoo aan wax canshuur ama khidmad ah laga qaadin. cilladaha ugu waaweyn ee ka yimid heshiiskan waxaa ka mid ah inaan canshuur laga qaadin shirkadaha iyo dadka qandaraaslayaasha ah ee soo dejinaya qalabkan iyo tasiilaadka kale ee u baahan tahay qaramada midoobay oo badankooda u taga howlgalka AMISOM. waxaa kaloo heshiiskan ka yimid in alaabo badan oo canshuur dhaaf lagu soo dejiyo ay galaan suuqa madow lagana sii macaasho iyadoo alaabtaasi ay ku soo degtay magaca qaramada midoobay. xildhibaan Cabdullaahi Maxamed Nuur waa wasiiru dawlihii hore ee maaliyadda Soomaaliya. horaantii sanadkii 2015 waxa uu xafiiskiisu qabtay mid kamid ah isku dayii ugu weynaa ee shirkad qandaraas kula jirta qaramada midoobay ay ku doonaysay in canshuur dhaaf ugu hesho shidaal 3 jibaar ka badan kan ay dalbatay qaramada midoobay. waxa uu soo degay shidaal qaramada midoobay ee gaaraya 5,000 oo metrik tan oo shidaal ayaa waxa la keenay xafiiska jooga canshuur dhaaf lagu dalbayo warqad ka soo baxda xafiiska qaramada midoobay. tifu waxaan qabaa marka inay marar badan dhici jirtay in wax badan lagu hoos qarin jiray oo la hoos marin jiray xafiiska qaramada midoobay. waxaanu u diray email xafiiska ay ka soo baxday warqadaas, waxaan anoo weydiinaya oo ku dhahaya waxa ay soo gaaray warqad noocaas, waxaana qabaa tuhna inaadan lahayn badeecadaas. marka arrintaas waxaan uga baahanaa clarification. isla markii waxaa la ii soo diray warqad kale oo ay ku qoran tahay may 1,200 oo metrik tan aan leenahay, malihim 5,000 ee metrik tan ee meesha ku qoran. runtii waxay igu noqotay waxa jiiba 3,800 metrik tan oo dee canshuurteedii la rabay in lala baxsado. waxaa kaloo ii muuqatay in dee marar badan ay dhici jireen dhacdooyinkaas oo kale ah. waa markii ugu horreyso aan weydiiyey, macnaheedu waxay lamid tahay nearly wax 80% ku dhawaad ayaa waxay noqotay wax la rabay in la lunsado ama lala baxsado. bishii Juulaay ee sanadkii aynu soo dhaafnayna sarkaal reer galbeed ah ayaa waraaq u qoray mas'uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya isagoo ka dalbanaya in canshuur dhaaf loo sameeyo shirkad ka mid ah kuwa ajaanibta ah ee waddanka ku sugan. markii ay mas'uuliyiinta Soomaalidu u sheegeen in shirkadaasi ay iska bixiso canshuurta wadooyinkana, waxa uu sarkaalkaasi ku hanjabay inay joojinayaan dhisme xero ciidan oo ay u dhisi lahaayeen ciidamada dowladda Soomaaliya. qoraalada ay isweydaarsadeen mas'uuliyiinta iyo sarkaalkaasi oo ay heshay idaacadda VOA waxaa ka muuqata in dowladda Soomaaliya ay isku dayda inay ku adkaysato in maadaama ay shirkadaasi tahay mid gaar loo leeyahay, hawsha ay fulinaysana ay macaash ka samaynayso inay iska bixiso canshuurta wadooyinka. balse taasi waxaa diiday sarkaalka reer galbeedka ah. ugu dambayntiina waxay ku qasabtay dowladda Soomaaliya inay kolonyadaasi ka dhaafto canshuurta si aysan u istaagin shaqada ka socota xerada ciidan.
toddobaadkii aynu soo dhaafnayna booyad kuwa shidaalka qaada ah oo ay ku qoran tahay calaamadda midowda Afrika ayaa soo gashay garaash ku yaala garoonka diyaaradaha waxayna shidaalkii ku jiray ku wareejisay booyad kale taasi oo kadibna ka baxday garoonka una boqoshay dhinaca magaalada goobjoogayaashu waxay sheegeen inay booyadaasi la soo wareegtay shidaalka suuqa madow Amisom waxay hore rasmi ahaan ugu qiratay in qaar ka mid ah askarteeda ay suuqa madow ka iibiyeen shidaalka u yimaada bishii August sanadkii 2016 Amisom waxay xabsiyo ku xukuntay 9 ka mid ah askarteeda oo ka soo jeeda dalka Uganda kuwaasi oo lagu helay inay shidaal ka ganacsanayeen 9kaasi waxay ka mid ahaayeen 18 askari oo lagu soo eedeeyay ficilo la xiriira shidaal iibinta suuqa madow wasiirka maaliyadda ee Soomaaliya Cabdiraxmaan Ducaale Beyle oo heshiiska soo masxeexay waxa uu VOA u sheegay in shidaalka kasokow ay dawladdiisu ururisay cadeymo kale oo dheeraad oo ku saabsan sida shirkadaha qandaraaska kula jira qaramada midoobay ay ugu takrifalaan heshiiska Sooma imise shirkado ajnabi ah jooga wadanka oo siyaabo kala duwan uga shaqeeyaan tirada dhabta ama hayo laakiin dhowr iyo 30 waa yihiin baan u maleynayaa waxaad doonaysaa inaad lacaga dabcan aruurisaan dakhli canshuur qaadaan shirkadahan marka dhowr iyo 30 ka canshuur hadda ma laga qaadaa iyo waxay ka qabtaan wadan iyaga iyo shaqaalahooda waa laga qaadaa qaar badan oo laga qaadaa jira qaar aan wali laga qaadan baa jira qaar UN-ka ku yar hoos dhuunta baa jira oo yiraahdaa contract waxbaan la leenahay arrintaas waxay tahay arrin ama lagu guda jiro oo laga qaadi doono ama lagaba qaaday maxaa uga lumay dawladda dhaqaalahan lacag fara badan baa ayaa luma 100 milyan lacag badan baa lunta 100 milyan waxa ma ahe laakiin de bishiiba waxa ilaa 20 milyan bishii soo gali kari lahayn wadanka 20 milyan bishii sharikadaha kaliya ma ahe dad badan oo Soomaaliyeed oo aan cashuuraha bixin baa jira maarta waxa maqlay siyaabaha ay u shaqeeyaan waxa kamid ah tusaalahan kuwa qaramada midoobay oo kale inay adeegsadaan heshiis adigu saxiixda xilligaada wasiirka arrimaha dibadda oo hosting agreement ah heshiiskaasina uu siinayay inay wax la soo deegi karaan iyadoon laga qaadan cashuur mudnaan gaar la siinayay waxyaabo badan ay soo degsadaan imise shirkado baa saa sameeyay oo exemptionska loo sameeyaa iyo privileges porta first waxaan leeyahay heshiisku isaga laftiisa wax badan oo ku khaldan ma jiro laakiin habka Soomaalida intelligent people weeyaan ay u isticmaalaan sax ayaa wax ku jira heshiiska la saxada akhrido wuxuu leeyahay cid alla cidii UN-ka ugu shaqeynaysa sifo gaar ah exclusivity wax la yiraahdo ba jiro iyaga oo kaliya wax soo dejinaya for example dad soo dejinayso gasoline inaad iyaga u soo dejinayso ayaad contract kula gashay Soomaalida waxay sameynayaan waxa weeye haddii loo baahnaa 100 metric ton 300 bay soo iibin 100na iyaga intaba cashuur dhaaf bay doon habbay soo mariyo marka UN-ka warqad baa la soo qori waxa cashuur dhaaf meesha waxa la isku haysto cashuur dhaafkii Sooma marka intii ay kuwan u baahnaa way inta kale suuq ay geeyeen kala diidaya horta waa taa exclusivity ereyga intay leegtahay arrin practice-ka noocaasa falka noocaasa waa badan yahay waxa UN-ka loo keeno particularly waxa loo keeno qolada ila Amisom de waxa ka jira muxuu ahaa dhiigbax baa ka jira waxa ka jira waxyaalo badan oo suuqa la geeyo jira oo maanta suuqa taa alaabta waxa iga soo iibshaa meesha UN-ka suuqa meel la yiraahdo jira UN-ka marketka shidaalka kamida shidaalkii mushkiladiisa waxay noqotay lama garan karo kii koodiga ka wuxuu yahay lama garan karo laga waxa la og yahay marka darawalkaaga tirada halka kaga soo shubo halka heblaayinay ka soo shubaya waxana hoosaan la isku leeyahay inuu shidaalka xagga yahay laakiin waxyaalaha cadaanka ah ee suuqa yaala waxa kamida caana kamida waxa la waxaan cunno dhanba kamida cuntada loo keeno qolada dhan ba kamida oo ay ku qoran tahay UN only marka UN-ka waa la fariisanay 3-4 jeer baan la fariisanay magaaladan ka soo iibinay waxa soo dhan hortooda soo dhignay to waxaan raadar ka jawaaba arinta soo cashuuraha laguma sameeyo laakiin meesha la yiraahdo xalanay farbaa ku godan kowdi waxyaalo shaqo badanna way u baahan yihiin maxay dhahayd marka UN-ku way nagu raaceen arintaas ma socon karto waa in la joojiyaa bay haddaba howlgalka qaramada midoobay ee Soomaaliya raalli miyuu ka yahay ku xadgudubka heshiiskan maxayse ka qabteen xadgudubyada dhacay ilaa haatan haddii ay fartu ku godan tahay xerada xalane sida uu dhigay wasiirka maaliyaddu maxaa qorshaysan inay dawladda Soomaaliya ka qabato
Amadou Camara waa agaasimaha xafiiska kaalmaynta Soomaaliya qaramada midoobay UNSOS oo ah hay'adda ay magaceeda ku soo degaan agabka ugu badan ee ay isticmaalaan hay'adaha qaramada midoobay iyo kuwa howlgalka ee AMISOM. Jawaabo qoraal ah oo soo diray galka baarista waxa uu ku difaacay heshiiskan, waxaana uu yidhi ciladu heshiiska ma aha. Isagoo ka hadlaya heshiiskaasina waxa uu yidhi heshiiska Soma waa dokumenti caadi ah oo maamula howlgal nabad ilaalin amaba siyaasadeed oo qaramada midoobay ka tirsan iyo dawladda martida loo yahay, waxaana uu ku salaysan yahay cahdiga mudnaanta iyo xasaanada ee la saxeexay sanadkii 1946. heshiiska Soma waxa uu shirkadaha qandaraasleyda ah ee agabka amaba adeega u fidiya qaramada midoobay siinaya mudnaanahaas qaarkood, waxaana ka mid ah in laga dhaafo bixinta cashuuraha qaarkood iyo lacagaha ay siin lahaayeen dawladda martida loo yahay. kuwani ma aha haddaba galdaloolooyin, balse waa heshiis ay wada gaadheen dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo qaramada midoobay, waxayna khuseeyaan oo keliya agabka iyo adeega ay qandaraaslayaashu siiyaan qaramada midoobay hay-adahooda. qaar ka mid a qandaraaslayaashaas ayaa laga yaabaa inay adeegsadaan cashuur dhaafkaasi si ay uga baaqsadaan bixinta cashuuraha iyo waajibaadka kale ee ka saaran adeega iyo agabka ay siiyaan hay-adaan ahayn kuwa qaramada midoobay, laakiin taasi marna ma aha wax la qorsheeyo amaba la dhiirigeliyo marka la raacayo heshiiskan. qaramada midoobay waxay si cad ugu sheegtay dawladda Soomaaliya in shirkadahaasi aan laga dhaafin bixinta cashuurta, annagana waxaan aad u taageersannahay cashuur ururinta dawladda. si aan taas gacan uga siinana waxaa la sameeyey guddi ka kooban shaqaalaha qaramada midoobay iyo saraakiisha wasaaradda maaliyadda si loo ogaado shirkadahan wada howlo aan ahayn kuwa qaramada midoobay iyo in hay-adahaasi ay xiriir la sameeyaan guddiga golaha wasiirada ee u xil saaran ururinta dakhliga ee loo sameeyey qaadista mas-uuliyadda ka saaran ilaalinta sharciga Soomaaliya. Amadou Camara waxa uu qiray in qaar ka mid ah agabka ku yimaada magaca qaramada midoobay ee canshuur dhaafka loo sameeyey ay galaan suuqa madow. Isagoo arrintaasi ka hadlayayna waxa uu yidhi qaramada midoobay xafiiska Soomaaliya waa uu ka warqabaa in shidaal, cunto iyo agab kale oo qandaraaslayaasha ay ku keenaan magaca qaramada midoobay ay galaan suuqa madow ee Muqdisho iyo magaalooyin kale oo Soomaaliya ku yaala. dadaal ayaan wadnaa aan dhibkan wax kaga qabanayno iyo inaan adkayno kontaroolka halkay ku socdaan alaabooyinkaasi, annagoo iskaashi la samaynayna wasaaradaha kala duwan ay khusayso ee dawladda Soomaaliya. qaramada midoobay eedahaas si adag ayay u qaadanaysaa, waxaanan samaynay baadhitaano ku saabsan arrintaasi. sidoo kale howlgalka AMISOM ayaa isaguna si adag u qaatay eedahaasi. xafiiska AMISOM waxa uu si joogta ah u hubinayaa marinada ay tisiilaadkana u soo maraan iyo kormeerka ku habboon intaba. ANSOS waxay hadda hirgelinaysaa hannaan elektroniga oo lagula socdo shidaalka, kaasi oo oggolaanaya isla xisaabta wanaagsan. dadaaladana waxaa ka dhashay isla xisaabta wanaagsan oo isticmaalka shidaalka la xidhiidha. waxaa kaloo aan Amadou Camara weydiiyey in shirkadaha qaarkood ay ka iibiyaan qaramada midoobay qalab ay hore u soo dejiyeen, iyaga oo diida canshuurta dawladda inay bixiyaan, marmarsiyana ka dhiganaya inay la macaamileen qaramada midoobay. arrintu ma aha xadgudub lagu samaynayo Soma, balse waa falal dembiilanimo oo lagu kaco kadib marka ay agabka amaba adeega dalbato AMISOM la gaadhsiiyo macmiilka. waxaanan ka wada hadalnay inaan baadhitaan wadajira la samayno dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo AMISOM si falalkan sharci darrada ah aan wax uga qabanno. qaramada midoobay marna ma oggolanayso in shirkadaha qandaraaska haysta ay ka wareegtaan cashuur bixinta, waxaanan wasaaradaha iyo laamaha dawladda siinana liis buuxo oo qandaraaslayaasha gaarka ah ee noo shaqeeya si loo ogaado kuwa falalkaasi ku jira. shirkadaha gaarka ah ee lagu hela inay ka wareegaan waajibaadkooda cashuureed waxay ku keeni kartaa in si degdega looga joojiyo qandaraasyada ay kula jiraan qaramada midoobay. guddi wasiirro ah oo dawladda Soomaaliya u xil saartay inay soo qiimeeyaan shirkadaha aan canshuurta laga qaadin iyo kuwa aan u diiwaan gashanayn dawladda ayaa sheegay in dhaqaale badan ay dawladda uga lunto shirkadahan ku tumanaya sharciga ama ka dhuumanaya inay canshuur bixiyaan. barnaamijka galka baarista waxa uu helay qiimayntaasi, waxaana wasiirradu ay ku sheegeen qiimeyntooda in dhaqaalaha ka lumaya dawladda loo kala saari karo dhowr qaybood oo kala ah canshuuraha iyo dulsaarka, dakhliga ka soo xarooda kiraynta dhulka ay ku shaqaystaan shirkadahani, lacagta ka soo xaroon lahayd oggolaanshaha dhismayaasha, diiwaangelinta shirkadaha ama meheradahooda ganacsi, bixinta liisanka shaqada iyo kharashaad kale. isugeyntiina waxay wasiirradu sheegeen in sanadkiiba ay dawladda uga lunto lacag dhan 4,178,000 oo dollar. haddaba maxaa laga qaban karaa arrintan? khubaradu waxay leeyihiin heshiisyada ay qaramada midoobay la galayso waddamada waxay isugu jiraan laba qaybood. waa qaybe in heshiisku ilaaliyo shaqada bani'aadminimo ee qaramada midoobay ay waddo, islamarkaana shuruucda waddanku aysan caqabad ku noqonin hawshaas. laakiin dhinaca kale waa inay jiraan hay-ado dawladeed oo garanaya waxa danta dalkooda ku jirto, islamarkaana dhowraya in qaramada midoobay aanay jabinin heshiiskaasi. sidaasi waxaa qaba xasan cabdi kaynaan oo muddo dheer u soo shaqeeyay qaramada midoobay, haatanna ku nool gobolka Michigan ee dalkan Maraykanka.
dawladdu shirkaddu waa shirkad private ah. UN-tana sharciyan ma qaadi karta mas-uuliyad shirkad private ah oo dalka ka jirta. shirkadda sharciga dalka ka jira ayaa qabanaya. iyadu waa inay u fulishaa waxa iyada iyo UN-ta ay ku heshiiyeen. kaalinta muhimka ah meesha soo galaysa waa kaalinta dawladda. way dhici kartaa mararka qaarkood dawladdu inay shirkadaha qaarkood haddii ay u aragto in canshuur laga daayo oo looga daayo sababtoo ah waxay waddanka soo gelinayaan ama dhaqaalo kale ama horumar kale ama faa'iido kale oo dadka iyo dalka faa'iido u noqonayo, dawladdu way samayn kartaa inay canshuur daarta ka dhaafto. yacni waa awood dawladeed, waa dawladahoo dhanna way isticmaalaan in ama canshuur loo daayo ama laga yareeyo, way dhici kartaa. arrinta uun halista ah waxaa weeye iyadoo aanay jirin heshiis cad oo dhex maray shirkadda iyo dawladda Soomaalida inay iyadu iska maamulato oo waxay rabtaan ay keento oo dawladda ay iska ahaato markii cilad soo baxdo oo la isweydiiyo. laakiin waa lagama maarmaan runtii sharciga qabanaya ka UN-tu ma difaaci karta hay-adda haddii ay hay-adda shuruucda dalka ka jirta ku xadgudubto. Foosiye Yuusuf Xaaji Aadan waa wasiirkii hore ee arrimaha dibadda Soomaaliya, waxayna wax ka ogay diyaarinta heshiiskaasi xilligii ay wasiirka ahayd. waxay ku tilmaantay inuu yahay xaqdarro. masala ka soo qaad qodobka transportka ama gaadiidka iyo safarada, xaq waxay u leedahay anson ama xafiiska halka iyo inta u jooga wuxuu xaq u leeyahay baabuurtiisa soo dejiso waxalla wixii iyagu ay ku shaqaynayaan in free of duty ama cashuur laga qaadi. hase yeeshee waxaa jira kuwa aanay iyagu soo dejisanin dad ka iibsadaan, dad baa u keena. dadkaasina waa ganacsato. marka caalamka intay ka wada yimaadeen ay halkan soo degeen ayaa ay janni ku jiraan cashuur aanay bixinaynin. waxay rabaanna gadayaan, kooskay rabaanna yani qiimahay rabaanna ay ku gadayaan. xataa qodobada heshiiska ku jira aan arkay waxaa kamid a inay dib u dhoofin karaan alaabta qaar hataa waa ay dawladda ogolaato inay u ogolaato inay dib u dhoofiyaan. marka maxaad ku talin lahayd in la sameeyo ama laga dhigo? anigu waxaan leeyahay horta marka hore in laga fiirsado weeye heshiisyada noocana marka la saxeexayo, maaha in dib eegis laga fakaro. marka hore inaan la saxeexin bay ahayd, in sidaydii aniga la diiday ahayd oo la yidhaahdo heshiiskan nooma qalmo, nooma cuntamo. laakiin hadda dhacday waa in dee dib eegisti qasab bay tahay iminka haddii ay isla gartaan UN-ta iyo ay isla gartaan dawladdu. dib eegisti waxay tahay laakiinse mar walba waa in la helo xaqa aynu leenahay, iyaguna xaqooda helaa inaguna xaqeena helo oo si cadaalada heshiisyada loo saxeexo. hadda u fiirso raashinka xitaa Soomaaliya iyo muuska iyo khudradda iyo cuntada hilibka kalluunka inaga maaragtay fresh isaga oo laga hela haddana dibadda laga keenaa, shirkadana keena. marka waxyaalo badan baa u baahan dib u eegis lagu sameeyo. ku dhowaad sanad ayaa laga joogaa markii dawladda Soomaaliya ay ka baxday qandaraasyada ay la gashay qaar ka mid a shirkadaha gaarka loo leeyahay, waxayna ballan qaaday in dib loo eegayo dhammaan qandaraasyada kale ee lala galay shirkadaha. su-aashu waxay tahay imise bilood ama sano ayay u baahan tahay dawladda Soomaaliya inay ku dhammaystirto dib u eegista heshiisyadan? haddii xataa dawladdu ay dib u eegayso heshiisyada qaarkood, ma haysataa saldhigga iyo difaacii sharci ee ay isaga difaaci lahayd shirkado laga yaabo inay ka dhaqaalo badan yihiin dawladda, lana tiigsan karaa maxkamada caalami ah? sidoo kale dawladda Soomaaliya ma diyaarisay shuruucdii bedeli lahayd kuwa jilicsan ee xilligan jira? yaase mas-uul uga ah diyaarinta sharciyo cusub? dawladda Soomaaliya ee xilligan jirta sama ballan qaadi kartaa inaysan gelin heshiisyo kale oo qiimo weyn ugu kaca dalka iyo dadka?